السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت بميل كستود كسرنتين وعد كسر دباتان حبنتين سبورتس كاينوسو دياريي أنيقا ويسسون اسمان للصعد وعنا سيدوك لي وحنا قلا صعدتان برتنا يوتيوب كان ugu magac darnay Awees Pro waxaan leeyahay subscribe inoo saar dhiirigelin weeyaan. kadib markii horyaalka Premier League si rasmi ah loo furay iyadoo ay kulmeen kooxda Aston Villa iyo kooxda Sheffield United hasaatee kulankaas ay ku soo ilaatay eber iyo eber. sidoo kale toddobaadkan ayaa la ciyaaray kulamadii ugu adkaa ee horyaalka Premier League. kulamadaas ayaa ah kooxda Manchester City ayaa la kulantay dhigeeda kooxda Arsenal hasaatee kulankaas ayaa ku soo ilaatay 3-1 kadib markii Arsenal lagu durduriyay 3 gool iyadoo ay keentay in niyad-jab weyn ay kula kulanto dhigeeda kooxda Manchester City. David Luiz ayaa qaatay kaarka casaanka daqiiqadii 40aad iyadoo moraalkeedii uu sidaa hoos ugu sii dhacay taasoo ay keentay in 3 waxba lagu durduriyo kooxda Arsenal. sidoo kale kulamadii toddobaadkan ugu adkaa ayaa ahaa kooxda Tottenham iyo kooxda Manchester United hasaatee kulankaas ayaa gabi ahaanteed ku soo ilaatay 1-1 iyadoo barbardhac la yimiday kooxda Tottenham daqiiqadii 8aad iyadoo ay barbardhac la timid kooxda Manchester United iyadoo guul muhiim ah ay ka gaadhay dhigeeda kooxda Tottenham waxay uga dhigan tahay in Tottenham guul darey kala kulantay dhigeeda kooxda Manchester United iyadoo ay kala qaateen dhibcaha 1-1. sidoo kale kulan adag ayaa dhaxmaray kooxda Sheffield iyo kooxda Barcelona iyadoo ay ka dhigan tahay niyad-jab weyn ay kala kulantay dhigeeda kooxda Sheffield taasoo ay keentay in hoggaanka ay ku sii hogaamiso 2 dhibcood iyadoo kooxda Real Madrid ay ugu harsan yahay kulan baaqiya. kooxda Real Sociedad ayaa la kulmi doonta kooxda Real Madrid haddii ay dhigeeda kooxda Real Madrid ay ka badiso kooxda Real Sociedad waxay uga dhigan tahay in ay hoggaanka la sii wareegi doonto kooxda Real Madrid. haddii ay guul muhiim ah gaarto dhigeeda kooxda Real Sociedad waxa sii hogaamin doonto horyaalkaasi dalka Spain kuna hogaamin doonto 2 dhibcood kooxda Barcelona. sidoo kale waxa wada ciyaari doona caawadan kooxda Real Madrid iyo kooxda Real Sociedad kulankaas natiijada ka soo baxa ayaan isla eegi doonaa wiiga soo socda. haddaba jananka nagala socotaan waa Awees Pro waxaan niga codsanayaa inaad noo saartaan subscribe like inoo raacisaan si aan dhiirigelin u helno sidoo kale siina share garey asxaabtada inta ciyaaraha xiiseyso. waa anigoo ah Awees Xuseen Cusmaan la soco barnaamijyada xiga waxaan leeyahay mar walba guusha waa xaqiina. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.